Albert Einstein ayaa wuxuu leeyahay dunidu waa meel halis ku leh in lagu noolaado mana ahan inay ku nool yihiin dad xun waa in dadkii wanaagsanaa ay gabeen kaalintooda marka laga yimaado koox daayir ah oo bisha Ramadaan u taagan inay kaalmeeyaan danyarta. haddaba Axmed Cabsiye oo kamid ah wariyaasha Soomaaliyeed ayaa inaga waramaya waxqabadkooda iyo waxa ku riixaya. waa amin duhur ah kooxdan dhalinyarada ahina waxay ku guda jiraan hawshooda maalinlaha ah oo ay karin kadib saxamo macmal ah ku cabaynayaan raashinkan ay diyaariyeen sida jadwalka ku dhigan maantana waa bariis iyo hilib iyo cabitaano kala cayn ah. kani waa muuqaal laga yaabo inuu maskaxdaada ku xawilo goob aroos iyo xalfad loo samaynayo bulshada inteeda isku filan durba marka aad aragto. ha yeeshee ma ahan goobtani hotel waa gudaha xarun samafal oo ku taala degmada Kaxda. waa da'yar lab iyo dhadig isugu jira kuwaasi oo sanadkii saddexaad oo xiriir ah soonqaad walba u midoobaya qabashada hal shaqo oo ay magac ahaan ula baxeen hirgelinteeda oo ah dan wadaag. kuwanina waa bartilmaameedkooda gaarka ah oo ah danyarta ku nool xerooyinka barakacayaasha oo halkan ku xaqiiqsanaya inaan kaliya la hilmaamin waqtigii ay ugu baahida badnaayeen balse loo fidiyey mudnaan iyo maamuus. waana samafalayaashan oo ay hormuud u tahay Nimco Ismaaciil kuwa mahaddaas iska leh oo sabab ay ku farxaan u abuuray. dhaqaalaha waxaa ka keena dad muxsiniin ah oo jecel sadaqada inay mar walba dhiibtaan walaalaha agoonta tiim la dhahaa sanadkan la fangareynaya kaleeto qoysaska waxaa siina maadaama afur oo kaliya ma siino waxaa siina bariiska iyo hilibka iyo malaayga afurna qeyba ka bixina qeybna suxur ahaan oo bixina. ha yeeshee ma ahan oo kaliya raashin deeqda quru ee halkan ka helayaan danyarta gaaraysa ku dhawaadka 300 ee qoys. sidoo kaleeto qoysas qaar waxaa jira oo tiro badan afurkaasi uu ku yar yahay qoysaskaas waxaan siinaa maalin waliba waxaa siinaa biilkoodii ahaa $5. ma oga haddii kaalmo sidan oo kale ah ay helayaan sanadka intiisa kale laakiin waxaysan moogeyn abaalka loo galay dhawaaqooduna kama dhigna waxaanan ka yarayn rajo iyo riyaaq. walaalahay qaar Allah siiyo waan ufriye maraadkood Allah u sahlo saanka sii kadar Allah noo ufriyaan Allah noo kaso qaar Allah siiyo waa mahadsanyihiin. yaa ku dhici kara inuu ka cabsado mustaqbalka Soomaaliya isagoo u jeeda in jiilkii ku hana qaaday burburka dalka ay u geeyfan yihiin gudashada mas'uuliyadooda Soomaalinimo iyo tan Islaamnimo. waxaa lagu tilmaamay diila nool iyo saadaal ayaan wacan.